Asalaamu calaykum asxaabta isku laabasho wanaagsan. Halkan waxaan kasii wadaynaa cashiraanteennii Odoo. Maanta cashirka waxaan ku sharxi doonaa application aad muhiim ah oo loo yaqaano Expense App ama qaabka loo xisaabiyo kharashaadka shirkadda ee Odoo. Marka Odoo wuxuu kaga duwan yahay applicationada kale aan dhahnay. Applicationihiisu waa gooni, haddii aad xisaabinayso employee oo kale ama payroll oo kale ama HRM waxooda waa gooni gooni. Application walba mid walba applicationkiisu waa u gooni. Marka Odoo marka la joogana application wuxuu leeyahay expense oo loogu xisaabiyo, loogu talagalay in lagu xisaabiyo. Marka cashirka maanta waxaan ku qaadan doonaa maxaa la dhahaa expense qaabka loo xisaabiyo expense-ga, lacagtiisa expense-giisa loo baxsho, iyo method kale oo loo yaqaano accounting app-ka application-ka muhiimka ah oo loo yaqaano accounting app inaad ka bixin kartid kana diiwaangelin kartid expense-ga adoon isticmaalin application-ka expense. Laakiin waxaa muhiim ah inaad la soo degto application. Markaad la soo degto wuu kuu soo gali doonaa qaybta accounting. Marka aan sharaxno waa maxay expense horta? Qarash waa maxay? Qarashku waa lacagta kambaniga uu ku qarash gareynayo inuu businesskiisa sii socdo, operate to operate the business. Businesska inuu sii shaqeeyo oo sii jiro. Tusaale ahaan office rent oo kale, kirada xafiiska oo kale. Haddii kirada xafiiska uusan bixinin, businesskan wuu burburi doonaa. Shaqaalaha lacagtooda oo kale, korontada, biyaha, internetka uu isticmaalayo, gawaarida uu isticmaalayo, waxyaabahan uu businesskaada u baahan yahay oo goonida u ah oo si uu u shaqeeyo businesskaas. Haddii expense kuwaasaa loo yaqaana. Haddaan la bixin uu businesska uu sii soconayn. Marka noocyada loo kala qaada expense-ga, marka expense-ga labaa loo kala qaadaa. Credit expense iyo cash expense. Credit expense micnaheedu waxaa waaye expense adi lagugu yeelanayo waa receive bill today laakiin pay later. Gadaal dambe aad ka bixin doontaa. Waa lagugu yeelan doonaa, wuxuuna gali doonaa account payable sida canshuuraha oo kale, korontada ama waxyaabaha kale oo businesskaada u baahan yahay. Waxaa kaloo jiro cash expense oo ah bilka markaa hadda heshid inaad lacagta hore ka bixisid. Tusaale ahaan baabuurka oo shirkadda u shaqeeya, gaaska uu ku shaqeeyo oo kale, ama kirada meesha uu businesskaada ku yaalo oo kale. Meeshaas oo kale bilka haddaa maanta uu kusoo gaaro bisha 5-teeda waa inaad lacagta bixisaa. Haddii kale ma sii soconayo businesskan. Marka businesska waxay u isticmaalaan expense-ga in ay ku track gareeyaan waa maxay cost-ga naga baxay, businesskeena meeqa profit uu soo saaray, businesskeena ma hooseeya. Sababta businesska expense-ga loo diiwaangelinayo businesska ay u diiwaangelinayaan ayaa waxay tahay inay ogaadaan xaaladda businesskooda uu ku sugan yahay. Qaabkee loo xisaabiyaa marka? Si aan u xisaabino business expense-ga, kow waxaan u baahnaa inaan la soo degno expense app application-kaas inaan la soo degno. Hadduu kugu jirana waa ku shaqeyn doontaa. Midda labaad waxay tahay inaan adjustment ku sameyno qaybta payment-ga aan saxno, category-yada aan abuurno, expense-yada noocyadooda, salary-ga, waxyaabaha ay u baahnaayeen, transportation-iska haddii ay noqon lahaayeen, iyo in aan kala saxno expense-yada payment lacagta. Meeshaan ku bixin doono cash miya, Salaam Bangi miya, waxyaabahaas inaan saxno. Tusaale ahaan office rent aa lagugu soo qoray, wuxuu noqon doonaa markaad diiwaangelinaysid rent expense aa loo aqoonsan doonaa. Account-kaasay geli doontaa. Haddii aad hadda bixinaysidna haddaadan hadda bixinayn oo diiwaangelinaysid, waxay laba account ay saameyn doontaa oo ah rent expense iyo account payable. Labadaasaa transaction-ka u saameyn doona. Laakiin lacagta haddii hadduu yahay cash expense oo hadda haddaad bixinaysid, meeshan account payable waa ka bixi doonaa oo account-ka aad lacagta ka jaraysid aa soo gali doona. Salaam Bangi ama wuxuu doonaa ha ahaado. Marka lacag bixinta qaabkee loo bixiyaa marka waxaa imaanaya qaybta expense-ga. New aa leedahay expense-ga noociisa, category-giisa, wixiisa aad diiwaangelinay. Manager-ka u diray marka user-iska iyo waxaa kala jiro user iyo manager aa kala jiro. User-ka qofka cashier-ka ah wuxuu diiwaangelinaa business expense-gu diiwaangelinaa, wuxuuna u diraa manager-ka. Manager-ka asaa system-ka soo gali doono, wuxuu approve gareynaa expense-gan in la galay. Post journal uu leeyahay. Payment-ga markaas waxay u soo laabanaysaa qofkii cashier-ka ah oo lacagta inuu baxsho iyo account-ka uu ka bixinayo. Qaabkaas ayaa lacagta loo bixin karaa. Marka haddii manager-ka uu isku yahay cashier-kii, waxa dhan asaa hawshooda qaban doona. Laakiin haddii uu jiro user loogu talagalay inuu cashier ahaado, awood uma yeelan doono inuu lacagta baxsho. Waxaa kaloo jiro method saddexaad oo ah bill payment in accounting app.
inaad diiwaan gelisid expensigii lacagtiina aad bixisid ayadoo la isticmaalayo accounting app. Accounting appka labadaba ka samayn kartaa. Yacni in sida expense app intaad tagtid waxaa kasoo samayn lahayd waxaa ka samayn kartaa accounting app ayadoo la joogo. Marka qaybta oo fundraise-ku kuu soo gali doonaa employee expense ayaa loo yaqaanaa. Haddii aadan application-ka la soo degin ma kuu soo gali doono. Marka application-ka waa inaad la soo degto. Application marka la soo degtid waxaa kuu fududaan doonta inaad qaybta accounting-ka aad ka wada samaysid waxa dhan. So waa kana tusaale ahaan inaad kadib saan u diiwaan gelisid. Yacni tusaale ahaan waxaan rabnaa inaad diiwaan gelino $300 oo salary ah oo inaad siino Faadumo ama $30 oo koronto ah accounting inaad ka siino akoonka cash on hand-iga. Marka kuwan waxaa siyaadi doona expense appsku qaybta accounts-ka expense way siyaadi doonaan. Cash on hand-igana wuu nusqaami doonaa waa laga jari doonaa lacag. Marka isla samayn. So waxaa soo gashaa application qaybta Odoogaada account-ka soo gal. Qaybtan apps ay ku qoran tahay application kugu jiro waa kaas hadduu ku jiran inta kala soo deg waxaa loo yaqaanaa expense. Install noo dheh anigana uma jiro. Waa uu noo soo dega application-ka. So hadda application-ka waa uu noo soo galay. Waa kana application-ka expense ayaa loo yaqaanaa. So application-ka qaabkan uu egyahay interface-kiisa. Meeshaan yacni uuna keena waxaa waaye haddii aad haysatid receipt yacni meeshaan aad kasoo gelin doontaa upload aad dhihi doontaa receipt-ka sawirkiisa uu aqoonsan doonaa expense-ga. Wuxuu leeyahay meeshaan oo expense to process oo ah haddii expense uu jiro oo qof uu soo approve gareynayo approving hadduu loo baahan yahay ama qof uu soo submit gareyn macnaha picture-ka kana laga aad ka arki doontaa. Expense marka abuuraysidna intaa ka abuuraysaa new aa leedahay. Qaybtan waa reporting-ka oo analyzing-ka ah expense-yadaada analyze-kooda inaad ogaatid. Meelaha expense-yada qaabkaan aad usoo bandhigi doontaa charts-kan. Meesha kale waxaa waaye category qaabka category u abuuri lahayd iyo setting-ka. Kooda hore marka waxaa ka bilaabaynaa qaybta setting-ka waa saxeynaa. So meeshaan waxaa imaadaa qaybtan digitalize iska dheh. Okay inta waxaa ka dhigaynaa expense journal. Expense journal. Okay create dheh. Noo create garay. Okay meeshaan type-kiisa waxaa waaye miscellaneous. Qaybtan advanced-ga journal entry-ga default account-kiisa expenses waaye. Save dheh. Okay qaybtan payment-ga saxeynaa marka waxaa soo gelisaa inta payment oo aad leedahay. Waxaa leeyahay ani manual payment oo cash ah. Waxaa kaloo leeyahay qaybta Salaam Bangi. Waxaa kaloo leeyahay qaybtan oo ah Dahabshiil iyo Premier Bank. Intaa markaa soo geliyo waxaa leenahay save. Oo noo save gareyn doonaa. So setting-ka waa soo saxnaa qaybtan category-ga sameynaynaa. Waxaan hadda noo samaysan ma rabno anaga. Waxaan rabnaa expense koowaad waxaa loo yaqaanaa salary expense category koowaad. Waa kan mushaharka waaye. Kan waxaa gelisaa salary expense. Akoonkaan ka guddoonta. Canshuuro wax ma jiraan. Okay cost ma jiro category-giisana waxaa dhahdaa all ka dhig. Okay add invoicing. Okay save iska dheh meeshaan. Midka labaad aan samayn doono waxaa waaye okay kan waxaa loo yaqaanaa rent expense. Rent expense. Okay inta waxaa nooga raadisaa qaybta oo rent. Waa kana rent. So reference-giisa waxaa dhahdaa all add invoicing. Akoonka uu ka go'ayo waa kaasaa.
save dheh. So waxaa noo dhiman transportation. Transportation expense. So waxaa dhahdaa meeshaan ma jiraa transportation. Station transportation ma jiro, create an edit. Waxaa iska siisaa meeshaan 7700. Okay, waxaa rabtaa sii kartaa. Noika maaha, waxaa waaye expenses waaye. Okay, save dheh. Okay, categorigiisa all waaye. Okay, save dheh. Waxaa noo dhiman hal xabo oo ah other expense. Haddii kharashaad kale ay imaadaan, other expense, other expense, other expense. Okay, 7710. Okay, save dheh. Category all, save. So hadda waxaa sameynay qaybta category-ga tag. Intaanoo category-ga sameynay. Yani category-yaashan waxay kaa saacidayaan inaad hadhow kala garatid expense-ga nooca uu yahay transportation, rent, other iyo salary midka. So marka aan yani sameyno expense hadda, waxaa dhahdaa new dheh. Tusaale ahaan waxaa rabnaa inaan bixino rent expense oo kale, kirada inaan bixino aan rabnaa. Okay, waxaan leenahay rent expense. Rent expense lacagtan laga rabo expense-ga waa kanaa. Waxa uu ku jiraa rent expense. Waxaa yani laga rabaa inaan bixino ka soo qaadba 200. Canshuur hadday ku jirto waa kaasaa. Meeshan waxay kala yihiin employee iyo company. Employee waxaa waaye shaqaalaha oo haddii uu jiro user hadduu soo galo, yani user-ka cashier-ka ah. Haddii company-ga uu yahana manager-ka waaye, qofka manager-ka ah. So meeshan employee ka dhig. Okay, haddii customer lagu invoice gareynayo waxaan intana account-kii waaye, waxaa dhahdaa submit. Hadda markii user ma jiro, aniga manager-ka ah oo user kale hadduu jiri lahaa meeshaan ka dooran lahayd. So waxaa leedahay meeshaan submit. Okay, haddii uu jiro user-kaas awood ma u lahaan doono inuu posting-kan sameeyo. Maadaama aniga manager-ka aan ahay oo halkii user oo qofka manager-ka uu yahay, meeshaan wuu hari doonaa qofka oo user-ka ah. Marka manager-ka imaan doono oo meeshaan wuxuu tagi doonaa expense to process. Qaybtan wuxuu tagi doonaa approver-ka. Wixii approve u baahan uu ku dhufan doonaa. Markuu ku dhufto wuxuu dhihi doonaa post to journal. Expense journal la gelin doonaa. Waxaa leedahay post. Waa la post gareeyay. Hadda expense-gan wuxuu saameyn doonaa 2 account u saameyn doonaa. Rent expense iyo wuxuu saameyn doonaa account payable. Haddii lacagta aad bixino account payable way ka go'i doontaa. Hadda soo fiirino marka. Qaybtan accounting ku try balance. Way. Qaybtan mujeda rent expense waxaa soo galay $200 iyo account payable. Account payable waa kana isna 200 ku soo darsantay. So haddii aad rabtid lacag inaad bixisid ayadana waa la bixin karaa. So haddii aad rabtid lacagta inaad bixiso waxaa ku dhufataa rent expense-gii ku dhufo. Waxaa dhahdaa journal entry. Then waxaa dhahdaa pay.
lacagta waxay ka go'i doontaa cash in hand $200 waaye. So waxaan dhahnaa bixi lacagta. Lacagta hadda waa la baxshay marka aan tagno meeshii account-kii tagno qaybta try balance-ga. Waxaa weeye account payable waa laga jaray lacagtii $200 waa laga jaray. Debit iyo credit waa ujeedaa. Intan waxaa ka go'day $200. Rent expense-giina waa la baxshay. Cash in hand-ga haddaad dhahday general ledger meesha ugu dambeysa waa kana rent expense oo $200 aa la baxshay. So haddii aad rabtid inaad yacni ka samaysid qaybta accounting-kana waa kana. Waxaa leedahay qaybtan oo fundraiser-ka employee expense meeshaan ka samayn kartaa. Waxaa leedahay new sidii hore lee waay. Waxaa soo gashanaysaa waxaa leedahay tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan bixino electricity Muqdisho power. So marka waxaynu weli category-gooda ayaga inaan soo abuurnay ahayd. Okay, let's say other expense ma jiro miya? Other expenses ka leh. Okay, tusaale ahaan Muqdisho power waxay noo keentay 50. So qofka diiwaangelinayna waa employee-gan. Waxaa leedahay submit. Waxaa leedahay post journal. Okay, posted. Lacagta bixi. Haddaadan lacagta bixin waa lagugu yeelan doonaa. So marka waxaa jirto haddii user oo qofka uu leeyahay meeshaan user-iska laga abuuraa. Meeshaan hadda hal user ayuu samaysan. User kale waa kusoo gali karaa oo admin aan ahayn. Keygan administrator waaye. User ahaan waa usoo gali kartaa. User ahaan haddaa usoo gashid awood uma yeelan doontid qaybtan oo ah ma rabno qaybtan oo approval-ka ah. Yacni wax approve garaysid awood uma yeelan doono. Qofka adminka ah kaliya wax approve garayn karo. User-ka meeshaan uga haraa draft-ga uga haraa. Adminkaa soo approve garaynayo then markaasuu lacagta bixi karaa. Markaasuu qaybtan oo wuxuu tagtaa journal entry-ga wuxuu dhihi karaa lacagtaas bixi. Salary haddaad bixinaysidna qaabkaas ayaa loo bixiyaa. I hope muuqaalka inuu wax uun kugu soo kordhiyay marka fadlan channelka noo subscribe garee muuqaalka noo like garee oo ku mahadsantahay daawashada.